halkan waa garoonka weyn ee degmada Balcad Dr. Ayub Stadium waxaa si habsami leh maanta oo Arbaca uga bilaabatay shaqadii dhismaha garoonka taas oo ujeedkeedu uu yahay in goordhow garoonku uu noqdo mid rooga waxaa goobta inta aan ku sugneen kula kulanay injineerkii garoonka iyo sidoo kale gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee degmada Balcad waxaana faahfaahin kooban naga siiyay qaabka ay wax u socdaan gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee degmada Balcad Abees Ali Daahir Abees Kabiilay maanta taariikhda 18 bisha koowaad 2003 waxaa si habsami leh noo furmay dhismaha garoonka oo jeedaan waxaan rajeynayaa duulayra inuu sanadif nagu dhamaado waxaan kaloo mahad celinayaa dadka ka shaqeeya injineerada iyo shaqadan rabaan inay qurxiyaan adduunkan ujeedadu waxa waaye maalin waaye hadda ujeedada garoonkan ko darbigiisa la wareejiyay maantana waa ujeedada gudihiisa iyo shaqo laga bilaabay marka ilaahay maadaas iska leh alxamdulillah insha Allah waxaan rajeynayaa Febraayo ama Maars dhexdeeda insha Allah garoonkeena qurux badan in lagu ciyaaro duulayra assalaamu calaykum waxaa sidoo kale goobta kula kulanay injineerkii garoonka iyo sidoo kale caawiyihiisa oo uu ka warbixiyay qaabka ay saakay shaqadu u bilaabatay iyo sida quruxda badan ay u rajeynayaan in shaqadan ay ugu soo idlaato bismillaahir rahmaanir rahiim waa 20 jirkii degmada Balcad maanta waxaa bilaabeynaa dhismihii oo garoonka waxaan jecelnahay inaan degmadeena horumarino waxaan jecelnahay inaan hore isu qaadno waxaan nahay dadkii u soo baxay degmada markaas waxa u taagannahay inaan degmadeena horumarino marka anagoo dhowr qof ah haddana waxaan ku soo dhaweynayaa injineerkii oo dhisay garoonka waa Xuseen Maxamed Mukhtaar ما شاء الله بارك الله خير الله سيدنا ما انتهينا سيدا أو ساعدكي أما إنجنيركي كوحجينكي دقمة محمد مختار صو شيء هذا الك سيدا هراء قدوميها أو كوبا عكتا أو كوبا بحي سيدا كرانك قاب كله قبلها يشقى مانتين بلاوت جديد طبعا مانتا أو بشيء تاي جنايو وحنجعلنا هدو إلى إرادو سيدا شقة أو هي أدى نو كانتي maadaama dhalinyarta degmada Balcad aan nahay injineeradooda oo maanta usoo kubcay ilaahayna wuxuu mahad noo siiyay inuu noo sahlo garoonkan weyn sidii uga shaqeey lahayn oo qaabkii loogu talagalay oo hay'adda ay usoo diseenkay usoo sameysay isla diseenkaas wax ka sii qurxan sidii ay ugu qancaan inaan sameeyno sidii degmada dhalinyarta oo u weyn yahay gudoomiyaha kubadda asigana inaan qancino shaqadana maanta waa noo bilaab shaqaalihii waa ka meesha noo wada taagan waxaan jecelnahay haduu ilaahay yiraahdo oo ilaahay noo garab galo saddex bil ay qabteen ka suko ina garoonka oo sahal oo si degdeg ah u soo saalsiino ayagana way mahansayiin dadkii noo keenay iyo dadkii shaqaalihii noo qabahay injineeradana garab taagan wabillahi tawfiiq si kastaba ha ahaatee waxaa maalmihii ugu dambeeyay dadaal lagu horumarinayo kubadda cagta degmada Balcad ay iska kaashanayeen xiriirka kubadda cagta degmada Balcad oo kaashanaya maamulka degmada Balcad Jilani Cali Mucu Raja Sports Balcad